dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyadoo barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dibudhaca doorashooyinka somalilan ee muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid kana tirsan hoggaanka sare xisbigaasi brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku-xigeenimo ah dowladdii axmed siilaayo haatanna halkan ku fadhiya siyaasi madax bannaan dhegaystayaal inta aynaan gudagelin barnaamijka maaha markii ugu horraysay ee doorashooyinka somalilan ay dib u dhacaan haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay waryahayaga sahara ciidla nuur mahadsanid khadar golaha wakiilada somalilan ee haatan xilka hayo waxaa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii 2005 muddada xilkoodu waxay ahayd 5 sannadood oo ku eeg sanadkii 2010 balse ugu yaraan 5 jeer ayaa loo kordhiyey muddada ay xilka sii hayn karaan sanadkii 2010 oo ay ku eegayd muddada xilka golaha wakiiladu waxaa somalilan ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyadu u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada waxaana xilligaasi loo kordhiyey 2 sannadood sanadkii 2012kiina waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd sanadkii 2017 oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka lasoo doorto ayaa mar kale la qabtay doorashadii madaxtooyada waxaana muddo kordhin loo sameeyey golayaasha wakiilada iyo deegaanka 28kii bishii Noofembar sanadkii 2018 ayay guddiga doorashooyinku shir jaraa'id oo ay qabteen ku sheegeen inaan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo mudeeyey oo ahayd bisha March ee sanadkan 2019 waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo maalintaasi ka hadlay shirka jaraa'id dhammaan qorshe hawleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxa ka hor yimi caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaalaba caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishanka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho maalmo kadib markii guddiga doorashooyinku u qoysgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga 2019 la qabanayo doorashada golayaasha guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyey 2 gole natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan soo jeedintii waxaa codaysay 69 xildhibaan aniguna ma codaynin 70 sidaasuu ku dhanyahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada sababaha ugu waaweyn ee ay doorashadu u qabsoomi weyday waxaa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaaro baahsan oo dalka ka dhacay duruufo dhaqaale oo ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaanay soo gaadhin miisaaniyaddii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay labada dhinac ee xukuumadda iyo qaadhaanbixiyayaasha oo saami lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada waxa ayna caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhaxeeya xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinka sida xisbiga waddani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqaynta kala noqdeen guddiga doorashooyinka Somaliland waxaana muuqata in la xaliyay khilaafka u dhaxeeya xisbiga waddani iyo guddiga doorashooyinka kadib markii ay dhowaan 3 xisbi ku heshiiyeen in 2 xubnood lagu kordhiyo guddiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay 7 xubnood heshiiska isafgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale oo dhinaca sharciga la xidhiidha taasi oo keenaysa in wax ka bedel lagu sameeyo xeer lambar 2001 oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay guddiga doorashooyinka Somaliland garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac ayaan weydiiyey hanaanka wax ka bedelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka heshiiskay ku heshiiyeen 3 xisbi qaran wuxuu isbedel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo qaabkay ku imanaya taasina waxay ku aasaysan tahay xeer baarlamaanku sameeyay si kolkaas soo jeedinta xisbiyadu ay u dhaqan gasho waxaa waajib noqonaysa in la horgeeyo golaha wakiilada si wax ka bedel lagu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira kadib haddii ansixiyaan loo gudbiyo golaha guurtida kadibna loo gudbiyo madaxweynaha oo nidaamkii sharci dejinta ee isaga kala sarreeyeen golaha wakiilada iyo guurtida madaxweynahana ku dhammaantiisa la mariyo ayaa waajib noqonaysa 2 arrimood baa laakiin oolaya hadda waxaa hor yaalla golaha wakiilada isbedel lagu sameeyey ama midayn lagu sameeyey xeerarkii doorashooyinka oo dhan golaha xukuumadda ay soo ansixiyeen kadib markii wax ka bedelka ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka labada su-aalood oo oolaya waxay tahay
soo jeedinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabyo qoraalka ay hadda horyaala golaha wakiilada mise inta kaa dhinac la iska dhigo ayaa wax isbedel lagu samaynayaa oo keliya xeerkii hore jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya labadaas su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin waana wax u ooli doona golaha wakiilada inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaan bixinta u dhaxaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo 15 sannadood ee ugu dambeeyeyba halxidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada waana arrinka saami qaybsiga gobolada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay goboladu ku yeelanayaan 82 mudane ee golaha wakiilada iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo hore ayay saddexda xisbi iyo dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Silaanyo ay uga wada hadleen qaabka loo maareyn karo xaluhelidda saami qaybsiga balse natiijo la'aan ayuu ku dhammaaday isku daygii xilligaasi sida uu sheegayo garyaqaan Axmed Nuur Guruuje arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee Axmed Silaanyo saddexda gudoomiye xisbi ee midimika madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi macaarid gudoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aan ka soo gaadha hase yeeshee ay go'aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Silaanyo dib u riixay arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac wakiilada golaha guud loo isku daray xeer dejintii dalka ah muddo dheer bay joogeen sababta ugu weyn ee joogeen waxa weeye xaanjirin xeerkiyada soo dooraa iyaga ayaana xeer dejin oo waajibka samaynta xeerarku saaray marka tuhu weyn wuxuu oranayaa xeerarka xeerkeedii dooranayay siniintiisa iyo ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cimriga ay sii joogayaan uu sii dheeraado ay waajibka xeer dejintu iyadu saaray waxa loo dejinayaa waa qaabkeeda lagu soo dooraa ilaa inta xeer ansixinayaana wuu oolayaa wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro waayo muranka ku salaysan saami qaybsigu wuxuu si kama dambaysa u xallelin karaa marka xeer la rabo xeerka cidda samaynaysaana waa golayaasha sharci dejinta Somaliland oo hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas'uuliyiinta ku tallaabsatay sanadkii 2001 markii la ansixiyay dastuurka doorashooyinkii ugu horeeyayna ay ka qabsoomeen sanadkii 2002 ayaa suurtagelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyay golayaasha deegaanka wakiilada iyo madaxtooyada kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hanaankii loo qabtay balse dib u dhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geedi socodka iyo koriinka dimuqraadiyadda waxaan mar kale idinku celinayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta iyo caawa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur saan horeba idinku sheegay waxa marti barnaamijka igu ah xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid Yuusuf Professor Axmed Cabdi Muuse Professor Abiyan oo musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u hoggaanka sare xisbigana ka tirsan iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya isla markaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku xigeen oo dhowra dawladda Axmed Silaanyo ugu horeyn xogayaha xisbiga kulmiye Xasan Saciid maxaa sababay in doorashooyinku dib u dhacaan mar kale marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo Garas laantan afka Soomaaliga VOA waan mahadnaqayaa runtii marka la eego arrimahaas waxa weeye wax jira carqaladaha badan way iska jiraan dhibaatooyin fara badan ayaa mayaata jira mid waxa ka mid ah duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray dhaqaale la'aan fara badan shuruucda aan curdin ahayn oo iska curdin aha xukuumadii soo maray oo iska daalaadhacayay yani waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii dee muddo aad sheegtay ay jireen iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee Somaliland badii soo haystay ayaa run ahaantii horta inta badan sabab u ah waa gartay xasan waan ku soo noqon doonaa Khadar xogayaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani kow ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan wal Khadar aad baan ku salaamayaa waanad mahadsantahay in barnaamijkan nagu marti qaaday aad baan u salaamayaa dhageystayaasha VOA sidoo kale arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa doonis la'aan siyaasadeed aniga sida igu muuqato oo ka imanaysa had iyo jeer xukuumadaha
talada haya ee maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin markii doonistu timaado ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la galaa laakiin mushkiladda ugu weynayna haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa madax noqdo mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahdaa ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto waxaanan isleeyahay waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda somalilan haysata waanu iman doonaa faahfaahinta ha dhowto professor abyan xisbiga ucid aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen siday ula kala muuqato maxaad ku dari lahayd aragti ahaan bismillahi raxmaan iraxiim khadar waan ku salaamaya waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha voice of america ba sidoo kale waxaan salaamaya saaxiibaday khadar iyo xasan iyo yuusuf inta haddii aan ka gudbo waxaan nagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo asalkeeduna yahay hoggaan xumo khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu korarsaday khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo taasaan nagu aragna haddaan xisbiga ucid waayahay yuusuf garas adoo soo koobaya siyaasiyan ma la qabtaa inay dhaliil cid gaara saaran tahay aad iyo aad baa qadar u mahadsan tahay ille anuu lama qabo aragtidaa waayo iyaga laftigooga beritoola hadday tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa laakiin waxaa la qabaa inaanay duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dambe kaga faahfaahin doonaa inay sababayso arrimahan taagin aan ku soo noqdo xasan saciid xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aad uga soo hor jeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin laakiin marka laga bilaabay ilaa dawladda hore axmed siilaanyo duruufii way la kowsadeen ma waxaan marka dabadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegaystayaasha u muuqanaysa ka weyn ayaa jira may horta qadar aad baa baahsan tahay waxa weeyaan saaxiibadayna horta dee waa kuwa jooga hoggaan xumo bay leeyihin yacni asxaab mucaarid markay dee timaaday meeshay joogaan horta in hoggaan xumo lagu carramaho ay aragti yaro kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadhayn oo dhinac eegaynin ayaad moodaa dee inay ka muuqato waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda iminka aynu taagnaynaa waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyey in doorashooyinka ay qabsoomaan saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinkaa hore u dhici jiray aanay u dhicina doorashadii la hirgeliyo oo ay dhacdo saddexdii xisbiga saaxiibada imanka abyan iyo khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii wada hadallada ayaanu ka mid ahayn go'aankan waa la wada gaadhay yacnii xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in dalka itijaah loo sameeyo oo waxaan dee doorashaa dib u dhacday ta kala duusidhacsa si aanay u dhicin waxaa hadda naga go'an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqsa badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alayba soo qorshaysan inay dibdhacyada badan ee imika yimid ee xukuumadihii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonaan baan rajaynaya insha allah waati xasan xogayaa kulmiyood mahadsan tahay xogayaa xisbiga wadani baan tegaya khadar xogayuu uu sheegay inay ka go'an tahay ilaa madaxweyne sidoo kalena xisbiyadiina mucaaridkiina qayb ka jiin inaad saxiixdeen inay doorasho dib u dhicin markaa soo ma moodid imika in laga soo gudbay wax badan way fiicnaan lahayd haddii sidaa walaalkay xasan uu sheegay ay maxaan ku dhahdaa ay wax u wada socon lahayn laakiin sida muuqata waa run 27kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku dhahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commissionkana xal maxaan ku dhahdaa loo raadiyo laakiin waxa runtu ay tahay oo noona muuqataa in weli cagajiid arrintaasi uu jiro waxaan ognahay baarlamaanka in arrintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la'aana baan uga shaqaynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhaha arrintaasi uu ansixin lahaa ilaa hadda meel uu kulmiya arrintaasi kaga shaqaynayo oo noo muuqata
ma jirto ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto guddi baa la sameeyey oo 15 xubnooda oo la yidhi wadahadallada si aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelanaha ka shaqeeyaan ilaa maanta guddidii ma fadhiisanin guddida madaxweyne ku-xigeenka ayaa gudoomiye looga dhigay ilaa hadda gudoomiyekiisu ugu yeedhin annaga raadinay ilaa haddana maxaan ku dhahday kama hayno marka waxa noo muuqata heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadayn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsaneyn arrinta doorashooyinkeennii sida aynu doonayna inay wax u socdaan abyan rajo fiican baa xusbiyadu qabaan marka laga go'aanka dhacay laakiin miyaad la qabtaa walaaca waddani ma ashbaha leyla bilbaarix xalay iyo caawa su'aka heshiiskaanu saxnay 27 Julaay sanadkan madaxweyne ku saxnay mid la mid ah 10 sannadood ka hor September 2009 ayaa lagu saxay madaxtooyada sidaas kale waxa la isku qabtay doorasho waa la heshiin waayey waa la soo dhaxgalay qodobo la inoo qoray hadalladii maalinka meesha laga yiri madaxweyne Riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiye wicid kuwa la mid ah laga yiri haddana madaxtooyada oo heshiiskaas ilaa soo dhaxgala ma aha heshiiskaasna inaanu ka wada shaqeyno fulintiisa inuu fulo xilliga ay hadda waxay kala duwan tahay waxaan aaminsanahay xilliga xukuumadii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaarad ku guuleystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman deadline buu lahaa 8 August baa u horeysay oo qodobka heshiiska ugu horeeyay mooshin la geeyo waxaa noo muuqata hadda cagajid inuu jiro oo waliba xukuumadda iyo xisbiga kulmiye la rabay inay qaataan hoggaanka maadaama iyagu ay mas'uuliyadda gacanta ku hayaan mid daabkeeda hayaan in ay ka cagajidayaan mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan inkastoo xildhibaano kulmiye ay qayb ka ahayn mooshinka saxiixiisa waad maasantahay abyan inagoo ka gudbaynaa saanay dooda ugu muuqanaynu qodobkii heshiiska ku dul istaagnay xasan baan siinaya fursad xogeeya guud xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qarannimada Soomaaliland haddii doorashooyinku dib u sii dhacdhacaan aynu u gudubna laakiin maxaad odhanaysaa saaxiibada horta qarannimada kale haynoo dambaysee horta heshiiskan waxa ka dhowr iyo 10 cisho horta ka dambeeyey gibiyada laga jooga saaxiibadaydani haddii ay iyagu isaga jeedaan uun qodqood iyo cambaarayn been iyo waxaan loo jeedin waa meesheeda kulmiye waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn uu qaato kulmiye iyo madaxweynuhu annagu waanu ka howlgalnay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaanka ku jira waa kulmiye loobi hoose ayaanu galaan samayn loobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud loola kulmayey lala kulmayey hoggaankooda lala kulmayey webka cidda liidariska maartay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmayey yacni in la bisleeyo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa la waday moogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa la waday marka waxa weeyaan roolalkayagii waanu qaadanay waananu wadnaa weli faray kama qodno laakiin de iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda lama socdaan baan u malaynayaa hal daqiiqo baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mooshinka markii meesha la geeyey ee meesha la tegay hartu kulmiye waa la waayo ma joogin laba xubnood baa nala saxeexay labadii xubnoodna sidaan xogta ku hayna mid ka mid markii la soo canaantay uu seexday heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxa la isku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday loo soo seexay xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyay inay ka dhabtahay heshiiskan inuu fulaa waxa ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo xildhibaano cid ka tirsan laakiin intiisa xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkay xasan sheegayo golahana ugu badnaa ee ay ahayd inay nala saxeexaan halkay tageen xasan waynu ka gudbaynaa khadar oo xoogaya taa iyo xasanba iyo abyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo yuusuf maraad macallin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka Soomaaliland dib u dhacayeen ilaa 2007 adigu shakhsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalo bismillaahir rahmaanir rahiim horta khadar waa su'aal aad u muhiim ah kullay anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u muhiim ah in la isweydiiyo su'aasha ah ma dhaqan bay naga tahay ma xadaarad la'aan bay naga tahay ma nidaamka dimuqraadiyadda laftirkiisa inagoon u bislaan baynu qaadanay sababahan badan ee mar walba noqday inay soo noqnoqoto doorashada dib u dhacaysa anigu kow waxaan qabaa horta kow sharciyadaha doorashooyinka khuseeya
ayaa u baahan in lagu eego dib u habeyn lagu wada sameeyo oo qodob meesha yaala qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga ahaa ee saarnaa ee xagga doorashada ay ka soo bixi waayaan horta yaa accountable yaa la xisaabtamo horta marka oo su'aaliyada laftirkeeda meesha u muhiim oo taala haddii xisbi ama labada xisbi ka mida saddexda xisbi laba ka mid oo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasho qabsoonin yaa xidhow ah sharciyadaha maqan bay ka mid yihiin sharciyaday noqon lahayd cidda xidhow noqon lahayd ma aha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerana iyo dad kale inay dhex galaan runtiina anigu waxaan aad u dhaliilayaa saddexda xisbiba waxaad moodaa marka si badan marar badan u eegto in waddani oo weliba u cuday aad uga dibacsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarid oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto dhinacan kale laftirkiisa xisbul xaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnaa inuu muujiyo oon isna muujin dabeetana wixii baa noqotay midi ka horgeeyay waa gartay yuusuf aad baad maasanta lagu horeysinaya abyan professore waxaa leeyahay haddaanay doorashadu ahayn tii madaxtooye xiise badanba uma hayaan xisbiyadu mucaarid iyo muxaafidba taa maxaa ka odhanaysaan waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyadu saad sheegtay falcelis badan baa laga sameeyaa waa laga doodaa waa laga qayliyaa tan lafteeda qayladu ma yarayn laakiin hay-addani waa hay-ad muhiima hay-ad sharci dejin weeyaan waa saddexdii branch ee dawladda mid ka mida weeyaan marka qayladu ma yarayn laakiin hawshan muhiimaddeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta iyada ayaa la rabaa inay liir ka qaadato hoggaan ka qaadato iyagaa fulintiiya marka anu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha goortooda isagu 30 sano ku dhawaad buu marayaa kani waxay baarlamaankii saddexaad baarlamaanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo golayaasha deegaanka kadaalika arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dawladnimadii iyo demokrasigii koritaankoodii somalilan waana waxyaabaha runtii hadda welwelka weyn leh for example hadda 10kii bisha waxaa markan inoogu yimid laba nin ka socda labada xisbiga maraykanka democratska iyo republicanka nin ka mida labada Washington bay ka yimaadeen oo Somaliland wax ku qora taageerana wuxuu yiri mushkulooyinka ugu waaweyn ee hor yaalla waxa weeye difaaca Somaliland markaan xagga joogno waxa la lagu eedeyn leeyahay Somaliland doorasho ma rabaan institutionskeedii hay'adaheedii way iska fadhiyaan way bololeen marka nimayo doorashadii qabsada waana arrin cid alla cid danayaasha Somaliland ama EU-da ama European-ka ama developmental partnership inta ay ku qaylinayaan inagu laakiin aad moodo inaysan muhiimad inoo lahayn mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhaxaysa weeye cid aan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhanba dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay waxaa bartakaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyada oo ay ka qayb gelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi iyo brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ahaa musharaxii jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka waxaana barnaamijku ku saabsan yahay dib u dhaca doorashooyinka somalilan ee soo noqnoqday aan mar kale dib ugu noqdo laakiin xasan haddaan kugu celiyo madaxweynaha uga dadaal badneed saddexda xisbi haddaad tiin taa ma diidaysaa horta mid way dhacaysaa waa run oo waxa weeyaan marka la eego waxa dhaqanoo ah marka carqalada yimaadaan ee dawlad doorashooyin konba laga soo iswaadur saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxa kale halkaa inaga dhigo ta madaxtooyada inoo soo qaada waddaniyo ay ka ahayba kuwii horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucid baa ku jiray taas inta way ku jirtaa hadda iyo dan maxaa shacbiga loogu tale lama aqbali karayo baarlamaan wakhtigiisa dhaco 15 sanadood maraysa 10 dhaafuraya inuu dalku sidaan ku sii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka anagu way naga go'an tahay in doorasho dhacdo waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aan wada galay iyo commitmentkii aan inoo wada muujiyey inaanu galno ayaan anigu ilaa iyo aynu rajalaan dhacdo ilaahayna ka bariyay rajalaan xogayaha waddani khadar su-aashaan kugu celiyo saddexda xisbi waxay heegan u yihiin inay intan ka badnaan lay dadaalkeeda iyo kartideeduba haddii ta madaxtooyada tahay marka soo lama moodo inaydaan ka dhaliil la'ayn walaal maya lama moodo inaanu arrinta harto asalkaahi waxa weeyaan mas-uuliyaduhu ma qaybsamaan mas-uuliyadaha cid baa leh waddankeenu shuruuc buu leeyey dastuur buu leeyey xeerar doorashuu leeyey xeerarkaa doorashaiyo dastuurkaasi mas-uuliyadaha cid bay kala siisiiyeen madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahay inay doorasho dhacdo marka horta cid la wadaagta mas-uuliyadda inay doorasho dhacda ma jirto eg midna aynu xasuusnaano
hadda doorashadu dib ha u dhacdo laakiin tiisa dib u dhaca doorashada golaheena baarlamaanku waxay bilaabantay 2010 2010 iyo ilaa iyo maanta waa 9 sanadood weey 9 sanadood ay dib u dhacayeen oo imikana inaan ogeyn inta dib u dhici doonto haddana 9 sanadoodba waxa fadhiyay madaxweyne kulmiya marka mas-uuliyadaha inaan qaybinayna mas-uuliyadda inay doorashadeenu dib u dhacdo mar kasta doorka koowaad labaad saddexaad waxa la madaxweynaha markaasi fadhiya xisbiyadu waxay leeyihiin inay riixaan intaan ku dilaabeen waxaan doonayaa horta xogayaha guud wadan walaalka Khadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo qolaamo mucaaradku yahayba ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda wuxuu haystaa isagu mas-uuliyad qaran oo kale inay saarnayn laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kuwa idaacadu ka sheegay horta yani waxa weeyaan waxaan in very junior yahay saaxiibkay Khadar oo aan waayo arag u ahayn hade waaqica jiray dalka Soomaaliland marka hadduu dhaliish anigu ma doonayo inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo dhan wadani aan cambaareeyo laakiin waxaan leeyahay inaad waaqica inta soo noqoto hade mas'uuliyad wasaaradda xukuumadda mas'uuliyadda xisbiga kulmiyada wasaaraya adigana kaamid lamida ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garanayba Khadar iyo naga qofoobin inta noqonay laakiin horta abiyana siiyo waxaan kugu darayaa Khadarow arinta waxaa tiri qaybada ugu badan markay noqoto doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo wax badan marka waxaa jira arin loojig oo arinta qaybada ugu badan waxa sameeya waa ninka kursiga doonaya isaga riixa arinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas'uuliyadda inta badan ku dhacaysa oo qayb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacay marka arintaasi waxa xaqiiqo jirta weeyaan annagu hadda for example waxaan kamid ahay 6 wadanka ku tartamayay hogaankiisa dhammaan waxay noo ahayd wax loo yaqaano campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashada inaan dib u dhicin inay qabsoonto marka cidii marka kursiga heshay baa laga doonaya aanu soo gudba laakiin garas haddii ay sii socdaan garasow marka doorashooyinkan dib u dhacaya Soomaaliland aqoonsi ma haysato had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka 15 sano fadhiyo goli deegaanku 8 sanadood afka la galo ta madaxweynahana aan la garanaysan aqoonsi laakiin hore dib ugu dhacday meenu naafoobayn hay'adaha dawladda iyo asxaabta iyo dadka han siyaasiga lahaba Khadar hortaado Soomaaliland waxay caan ku ahayd amaba u yaala labada shay nabadda iyo dimuqraadiyadda doorashooyinka dib u dhacaya naafeen qulamaay horta waxay noqonaysaa arrin Soomaaliland waxay 30 sano ka soo shaqeynaysay 30 kale lamida dib u celi sababtoo ah hay'adaha dawliga ay waxay ku dhismayeen doorashooyinka socda beesha caalamka ay nagala shaqeynaysay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya beesha caalamku ay nagala shaqeynaysay in wixii deeq la siinayo Soomaaliland iskeed loo siiyo intuba waxay hoos imanayeen intuba waxa dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayay waxay Soomaaliland caan ku noqotay in la ilaado shamac yare ifayay geeska Afrika ka dhex baxaya oo Soomaaliland sababtuna wax kala ma ahayn doorashooyinka yahay tii haddii hadda maanta aynu arkayno waxaan maleynayaa inay Chinese buuga gelayso in la helo wadan doorasho 2015 rag kuraasta ku fadhiistay 2005 ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horeyso hadaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexda xisbi waxay sheegeen in halkan xogayaasha fadhiyaan inay la soconeen heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahayd mooshinka baarlamaanka la geynaya wala marka kuraasta la rabay inay ka kacaan intooda badanna aanay diyaar u hayna kuraasta ka kacaan marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhay loo dhiibayo runtii waa wax dadku isweydiinayaan xoogay Khadar maxay Soomaaliland ka dhaxli kartaa haddii aan la soo afjarin dhaqankan muddo kororsiga doorashooyinka walartu muddo kororsiga doorashooyinka waxa laga dhaxlay ma fahmi karno ilaa aynu fahmno mushkiladdu halkayba salka ku haysaa mushkiladdu salka waxay ku haysaa qof markuu kursiga yimaado shaarku isaga leegaanayo dabadeetana aan doonaynin shaarka aynu bedelo dhabtu wata ma ogtahay dadkeenu waa inaynu ogaano xaqiiqada inaynu sheegnaa inay wax wanaagsan tahay runta inaynu sheegnaa arrintanna waxay keenaysaa inaynu kaftan noqono
oo adduunku inoo arko inaynu iska kaftamayno oo inaanay arrimaha dimuqraadiyadda iyo waxaanaynu ka hadlaynaa aanay dhabinaga ahayn ee ay tahay un dariiq qofkuu kursiga ku gaadho markuu kursiga gaadhana siduu baruusinka u aasan lahaa ee shaarka eg wadamada waxaynu u baahannahay inaynu shuruucdeenna horumarino waxaynu u baahannahay inaynu institutionskeenna iyo hay-adaheenna ama doorasho ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto la horumariyo institutionska horumarintoodii mas-uuliyaddu mar walba madaxweynahay saaran talaan leeyahay fikir baan leeyahay taladii iyo fikirkii dee xasan iyo waanuu sheegnaa maalin walba miidiyahaanuu marinaa si hoosaan ugu sheegnaa qaar annaga naga mid a waraaqa u qoro oo yidhaahda war sidanaa waddanku ku hagaagsan yahay sidan yaala dee inay taladii qaataan iyo inay qaadan waayaan iyagay u taalla waad mahadsan tahay abyan halkee bugta ee la daweyn karaa markaad u eegto si heer qarana anad si xusbi ahaan ama siyaasiyadda waxaa ku kala duwan tinaydaan u eegin si looga baxo in cidina soo dhigto muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacaan marna ay ka hor yimaadaan arrintaas inay dalkan iyo dadkan ka dhammaato waxaa lagaga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win-win situation arrimaha ina hor imanaya 17 bilood baan hadda shiraynay oonu ka shiraynay komishanka labaha laga dhigo iyo 7 loo daayo hal maalin baa nin ambassador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxeexay yacni taas inay ceeb tahay inaynu aragno waana tii inagu dhacday 10 sano ka hor oo madaxweyne riyaal hadalkiisii uu maalinkaa u lahaa madaxtooyada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horraysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taariikhdaa kamaynaan faa'iidaysan lafteedii baa inagu dhacday tii un baana soo noqotay marka dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysanno regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutionskeenni ay saa u bololaan danna aynaan ka lahayn dee waxaa imanaysa marka in laynaga jeesto caalamkii in dowladnimadeennii iyo ijraaf iyo goonistaagii waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oon iska noqonno uun daduun nabadgelyo yar haysa oo qabaa'iloo meel ku nool waa garta abiyaad mahadsantay xogayaa xisbiga kulmiye talada haya xasan sayd marka la eego waxaad ku celcelisay in imika laga bilaabo doorashada idinka go'an tahay dadkayna dhegaysanaya imika v o kaa dhegaysanaya calaamaddaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiye aad xogayaa guud u tahay diyaar yihiinna doorashadu mar kala dhicin maxay noqonaysaa horta waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horraysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinaya aan horena uga afeeftay in badanna aan ka afeefanayay markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaa qabaa halku doonayaan kula ordi doonaaye 17 biloodba carqaladda taagnayd afkaygaan ka dhowray wax miyo waa kiisa waa xisbigiisa waddani ayaa oranaya ayaa dee taagnaa moogtay isagaa carqaladda dhigayay mana doonaynin runtii inaan galo yoyotan laakiin dee inankan isagaa loo taaglayahay horta bal waynu mas-uuliyaddiisa garowsado markaan tanaad weydiisa dib ugu soo noqdo si abyan sheegay waxaa loo baahaya horta mas-uuliyad ballaadhan axsaabta wax saaran mid xukuumadda talada xukuumadda haya iyo mid mucaarado banaanka taaga waxa weeyaa mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaadhan ayaa saaran yacni leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaan mustaqbalka uu doonaya carruurtaa yar ee maanta ay joogto qaran dhibaatooyin fara badan la soo ornay 30 sannadood oo dhibaatooyina aqoonsi la'aan loo baahan yahay in wixii laga gudbo waxa ka go'an oon isleeyahay anugu aan dhegaystayaashii u ballan qaadaya maanta dee haddaanay qolada saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kale la iman iyagu oo aanay dibadda noo soo jeedin sidoodii waxaa naga wada go'an oonu heshiis ku nahay heshiiska aanu gallay iyo commitmentka aanu gallay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaalla doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qodxanta ka wada xaadhno oo aanu anagu weliba mas-uuliyadda inta badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anigu ayaan ballan qaadaya saddexda xisbiba ee labada xisbiga kalena xalka waanu imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan imika qof inan ama inan qofku doonaya ha noqdo ee uu han siyaasiya lahaa uu doonaya inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo 7 sannadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacag kaga socoto ama kaambeenkii reerka dhexdiisii uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaas la mid ah 15 sannadood miyayna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo taariikhiyan haddaynu dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiya waxaa ka mid a cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waaye amaba lagaa gureegi waaye burburku maaha dalka quroo burbura institutionkaa qofkii 15 sanno ama 10 sanno uu ku fadhiyo kursigaa sharci darrada ah ayaa burburkii u ah golayaasha deegaanka marka wakhtigoogii la qaban waayo ay wakhtigoogii dhaafto mas-uuliyad badan oo inta badan dadku iska sii saarayaan xilkii hayeen ma jirto ka baarlamanku waa la mid markaa dadka laftirkiisii sharaxaya hanka lahaana
mustaqbalkoogii iyo waayo dadku waxay yidhahdaan siyaasaddu ma wacna dalku wuxuu horumar ku gaadhaa siyaasad wanaagsan waxay ku timaadaa markuu siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsanna qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadhow qofkii wanaagsanaa ka niyad jabo qofaan ku habboonayn baa booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo aan ku darayo raaciba halkaan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbul xaakimka oon ka tirsanahay midna waxay u taallay asxaabta mucaaridka xisbul xaakimka mar kasta xilligaa jooga ama kulmiyahaada ama ka beritoola iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isagaa qaata hadday qabsoontana legasigeeda iyo quruxdeeda isagaa qaata hadhow iman mayso xisbiye mucaaridaba ay haystay xisbiye mucaaridaba dhagaxaani hor dhigay kuwa kale ay halkan faraqay jiidanayay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa un ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baanu arka inuu xisbul xaakimka xilligaa joogaa si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin ay guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa war mar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagi inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoomay waxaad ku dadaashaa si kasta oo ay wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabadii waa imika 17 bilood waa ayaan darro dadka caqligooga cay ku tahay in la isku haystay 9 ha laga dhigo iyo 7 ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayeen aad baad maasatay garas xogayaha xisbiga wadani khadar gunaanadkii baynu ku dhownay doodeena maxaad xal u aragtaa xalku waxa weeyaan in cid walba harto marka hore waajibkeeda ay garato maxaan ku dhahdaa waxa qofka laga doonayay ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacbiga iyo dadkaanu haynaa waxaanu annagu iska leenahay oo aanu sidan doonno ugu macaamilayna maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la ilaaliyo madaxweyne daahir rayaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahdaa eena qabtay cidina ma hadal hayso kulmiyay saysan jireen cidina ma hadal hayso maxaan ku dhahdaa ucid bay saysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse bixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon 5 sano oo uu fadhiyay oo aan wax doorasho ah qabanin dalkani doorasho u baahan yahay xisbiyadu doorasho u baahan yihiin shacbigu doorasho u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intaan ag moogtahay wadamadu siday ku horumaraan waa sida khalad kastoo dhacay wax laga barto laga faa'iideysto annagu waxaan leenahay khaladaadkeennii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka baranno oo aan wax ka faa'iideysano in hay'adaheena doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaacun garanayo oo wixii sax ahaa ay u muuqday aanu odhan karahaynin waa mushkilad waaye abyan waad maasatay khadar professor abyan xal maxaad u aragtaa xal waxaan u arkaa in kow aan ka baxno qabyaaladda oo dawladnimo iyo governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baynu isku khaldaynaa waxaynu taagannahay runtii crossroads maanta somaliland waxaan ugu xiran waa garanaynaa aynu in aynu tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isu dulqaadku wiilwaal baa laga sheegay inaan rag wax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku dhaamo waaye reerka ugu yar lama muquunin karo inaynu isu tanaasulno in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tiraahdo kayguma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya xogayaha xisbiga talada haya kulmiyaan ugu dambeeyay talada waqtigaad inoogu kooban xasan xalka horta waxaan u arkaa in si wada jira loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska daneeyaasha doorashadu haddii axsaabta tahay hadday xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu regionska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaan axsaab nahay ay heshiiskii ay galeen 12 cisho ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo anigoo u mahadnaqayo weliba guddoomiyaasha cabdiraxmaan cabdilaahi iyo faysal calwaraabe iyo mas-uuliyiinta kale axsaabta aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qaybgelaysay oo ugu horreeya xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye xasan siciid yuusuf musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid ahna mas-uul ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ucid brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas aad ayaa martidiinani ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka toddobaadkanna barnaamijku waxaa idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana kala socotay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a tan iyo kulan dambe dhammaantiin waa khadar maxamed cakulle oo idinle sidaa iyo nabadgelyo